qiimaha askarta caadiga ay bixiyeen qiimo ka badana bixiseen intaasoo waqti ah oo nolol adag iyo rafaad iyo waxba soo bateen ciddii soo arag u soo sheeg hooyo iyo walaalo iyo kulli qalbigoodu qabooji wax fiicanna u sheeg inaa maxaa dalka u maqneeday haddana aad timiday oo aad u timida dalkii wax weynay u tahay qoysaskiinna ilaahay idinkiis waa baxaysaan fasaxa qaadanaysaan cidihiinna aad aadaysaan meel kastoo ay jiraan bil waa ninka ugu fog waa ku filantaa u malaynaa inuu reerka ku tago oo ku soo noqdo inaad dareentaanaan rabnaa inaad horta akhtiyaarkiin aad meesha ku joogtaan xorna aad tihiin danta dalkiinnana aa u joogtaan waxaa dawladdu kafaalo qaaday intii karaankeeda aheeday inaad wixii yaroo qarashaad ahay loo baahnaay mishaar hadday tahay gunno hadday tahay inaad heshaan hadda laga bilaabo intaadan fasaxa aadina ka bilaabato oo aad bil walba heshaan cadowga dalka haysta haddaan ka bixinno nolosheenna kuweenna rayidka oo bannaanka jooga iyo nolosha ciidamaduba way isbeddelaysaa cashuur ma qaadan karno dalkii maxaan ku rahay dadkii meeshay joogeen ma tegi karno wixii loo baahnaay looma gey karo caafimaad looma gey karo biyo hadda qofka haddaanan caafimaad iyo tacliin iyo biyo nadiif iyo wixii aadan siinayn cashuur say uga qaadeen shabaab iyo annaga ma kala duwanaanayno shabaaba waxba ma siiyaan dadka xoolahay ka gurtaan leh caafimaad ma siiyaan biyo ma siiyaan maxaan ku idhahdaa amnigaan siinahay ku faanan amniga shabaab waxaa la yidhaha amniga xoolaha 10 neefoo ari haddaad leedahay oo xerada ay kugu jiraan dhurwaaga waa ka ilaalinay libaax waa ka shabeelka waa ka ilaalinay dawacada waa ka ilaalinay ma taaba karaan tuugga waa ka ilaalinay waa ka ilaalinay laakiin adiga markaa u baahatid waa soo qabanay waa qalanay maano shabaab dadka Soomaaliyeed saasay u yihiin dadka kale yaan laga taaban soo qabo maanta asaga qofka rabana qalana qofka rabana qarxina qofka rabana qarka rida ammaan ma aha marka taas qofka inuu xurriyad dareemo shakhsiyan qofku inuu xurriyad u dareemo waayo waxa ammaanku dareemayo oo ammaanku yahay idinka oo ciidanka xoogga dalka soo gacmo daahira wax daahiriya la yiri dadka inaad xoreysaan la rabo idinka horta waa inaad xurriyad dareentaan inta Soomaaliya la yira dalkiina waaye sidiisabana annaga mabda'an qaadanay dadku inay xor ahaadaan xurriyadna dareemaan askartu maxayna xor ka ahayn jirto nidaamka askarinimada xor ka ma ihid qawaaniin iyo nidaam iyo shuruuc iyo discipliin iyo wax u deganay leena xor ka ahayn laakiin sidaada kale qof adoonsan ma ahid baxa nabad ku baxa reerihii nabad ugu taga ilaahay idankiis soo la soo jooga hooyo iyo aabbe iyo walaal iyo kulli inay arkaan kaliya wax weyn u ah soo noqda ilaahay idankiis dalkiina waa idin baahan yahay idinkuna 5 sano noloshiina kamid 4 sano noloshiina kamid oo qaali ah waxa aad ku bixiseen maalinta inta ka bixiseen 20 jir ninkii maanta waa 24 jir 25 jir kii 25 jir ahna waa 30 jir intaasoo cimrigaaga kamid aad bixisay qiimo weyn waaye waxaan rabnaa inaad soo noqotaan dalka xoreysaan dalkii xor ah aad meel kasta aad ku joogtaan guul iyo khayr aan idin rajaynaa insha Allah maanta wixii process oo la maraayay lacagtu sida idin soo gaari lahayd maxaan ku iraahdaa accountadiinni maxaan ku iraahdaa wixii kale numberkii wixii la maraayo dhamaad halkan waa diyaar idinku yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan waxa meeshaas sababnaa hogaamadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dhan jooga hogaankii maaliyadda hogaankii ciidanka hogaankii hubka hogaankii dhammaan waa joogaan taliskiya jooga taliyihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed jooga wax ka macna weyn hogaamadii oo dhan madaxdii senior people jananadii wax ka macna weyn iyo soo dhaweyn ka weyn intaas oo la idin sameey lahayd ma jirto xoreynta dalka waa markaa soo noqotaan hadii alla yiraahdo guul iyo khayr idin rajaynaa waalidkii walaalaha u tagaysaan nagu salaam ya ballantii aan ayaga ka qaadana waa ka dhameynay taan adinkeena ka qaadnayna waa ka dhameynay taa adinku qaadeena idinku dhiman inaad ka dhamaysaanna waa rajaynaa hadii alla insha Allah waa ka dhameynaysaa soo maaha ma sha Allah guulaysta adinka aad iyo aad u mahadsantihiin تانية ما صنت قلت إن شاء الله أي كان